waxay ahayd habeen Jimca oo uu dayaxa buuxay. Saarana waxay go'aansatay habeenkaasi inay si xilli hore seexan maadaama ay Jimca iska tahay. Markaasi waxay jiifatay sariirteedii, moobilkeeda ay soo qaadatay, waxayna daawanaysay fiidiyoyaal ilaa ay sidii loo joogay oo markii ay maraysay habeenbarkii ay dareentay sidii inuu qof daawanayo oo kale. Jirkeeda waxay ka dareentay dhaxan inkastoo lagu jiray xilliyo kuleyl ah. Markaasi waxay ogaatay Saara in guriga aysan cidna la tagnayn, sidoo kalena macquul ma aysan ahayn inuu qof tuuga gurigeeda soo galay, sababtoo ah meesha ay tagneed waxay ahayd meel aad u nabad badan. Saara waxay isku dayday nafsadeeda inay ka dhaadhiciso inaysan waxba daawanaynin. Markaasi waxay ku laabatay daawashadii moobilkeeda, laakiin dareenka ah inuu qof fiirinayo waa uu ka tagi waayey oo waxay dareemaysaa in la daawanayo. Markaasi siday u joogtayba waxaa niyaddeeda ku soo dhacday inay eegto sawirkii uu saaxiibadeed siisay. Sawirkay saaxiibadeed siisay waxay sawir ku sawirantahay islaan cajuusada. Islaantaasi waa laga cabsanayay indhaheeda. Saaxiibadeedii sawirkaas way iska siisay sababtoo ah waxay ahayd mid jecel inay urursato sawiraanta qaabka daran. Markaasi ay eegtay sawirka waxaabad moodaa sawirka indhihiisa inuu iyada dhinaceeda ku soo jeedo. Saara waxay isweydiisay in sawirka indhihiisa uu saan u soo jeeday iyo in kaleba. Siday u fakaraysay ayay waxay istiri macquul maahan, sawir lagama yaabo inuu dhaqaaqo. Markaasi way ka sii jeesatay, laakiin dareenkii wuu sii badanayay. Xoogaasi u joogtay ayay waxay dareentay dhegteeda agteeda oo laga neefsanayo. Saara wadnihii ayaa istaag gaaray cabsi darteed. Waxaan ka ag neefsanaya sariirteeda ayuu ag taagan yahay oo dhegteeda ayuu ku ag neefsanayaa. Markaasi way isnabtay oo waxay damacday inay niyaddeeda iskugu sheekayso in waxani ay yihiin maskaxdeeda. Laakiin neefta marba mar ka sii dambaysa way soo dhawaanaysay sidii inuu waxa neefsanayo uu u soo dhawaanayo Saara. Markaasi cabsida ayaa ka tiro badatay, laakiin way awoodi weysay inay eegto waxa dhegteeda ku neefsanaya. Si u joogtay ayuu hal mar neeftii iswada joojiyay. Saara gadaal ayay soo eegtay, qofnana meeshii way ka weysay. Way yaabtay wixii ku neefsanay muxuu ahaa, laakiin haddana maskaxdeeda ayay wax iska tiri waxaan oo dhan adiga ayaa iskugu sheekeynaya maadaama ay keligeedna degan tahay. Wax hurdaa ma aysan hayn, sidaas darteed waxay ku laabatay daawashadii moobilkeeda. Xoogaa markay joogtayna waxay dareentay isla neeftii. Markani Saara waxay go'aansatay inay soo jeesato. Markii ay soo jeesatay wadnihii ayaa dhacay. Waxay aragtay isla islaantii sawirka ku taalay, taasoo markaasi dhinaca sariirteeda fadhido oo dhoola cadaynayso si qaab daran u eegaysa Saara. Saara markaasi si saa'id ayay u qaylisay ayadoon garanaynin waxa ay samayso. Isla markiina way istaagtay oo waxa ay damacday inay meesha iskaga cararto. Intii albaabka ku ordaysay ayaa gurigeeda nadiifka ahaan jiray. Hal mar warqadihii oo dhan waxay bilaabeen inay tuutuulaan, markaasna ay dhulka ku soo daataan iyadoo guriga ka dhigaya mid aad u wasakh badan. Saara aad ayay u cabsatay. Albaabkii markii u dhowdahayba way soo jeesatay, waxayna markaasi aragtay islaantii oo markaani aan dhar qabin, taasoo dhinaceeda u soo guguuranaysa sidii horena ka cabsi badan. Saara way damacday in albaabka baxdo, laakiin waxayaa jiray qabanaya, waxayaa jiray jirkeeda gadaal u soo celinayay. Markaasi dhulkii ayaaba ku dhegtay Saara. Markaas ay damcadayba inay dhaqaaqdaba way dhaqaaqi weysay. Islaantiina marba marka ka sii dambaysa way u soo dhawaanaysaa. Ayadoo ay Saara isdhahayso hadda ayay ku dilaysaa islaantii, ayay markaasi waxaa aragtay qoraxdii oo wax yara soo baxaysa. Markaasna qoraxdii ay ka soo jeesatay waxay aragtay islaantii maba joogtaba meesha. Saara aad ayay u yaabtay, waxayna markaasi istiri amaad riyoonaysaa wixii caawa dhan arkaysay amay maskaxdaada tahay. Way istaagtay, kadibna moobilkii ka dhacay ayay soo qabsatay. Markaasna waxay ku aragtay islaantii sawirkeeda, taasoo dhoola cadaynayso. Markaas ayayna garatay islaantani inaysan ka dhammaan doonin oo markaana caawa dhan waxay arkaysay ee run ahayd.